bismillaah maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhawo videogeena maanta oo aan ku soo qaadan doono sida loo samaysto Facebook account. Haddii aad Facebook account lahayn oo aad jeclaan lahayd inaad samaysto mid cusub oo caalami ah ama haddii waqti hore lagu sameeyay oo aad ka shakisay in lagula isticmaalo ama lagaa jabsaday ama lagaa xaday oo aad jeclaan lahayd inaad samaysto mid cusub oo adiga aad maarayso, inshallah videogan waa mid kugu haboon. waxaana jeclaan lahayn inaad ilaa dhammaadka sii daawato. sidoo kale haddii aad Facebook account aad leedahay oo aad ku faraxsan tahay maanta siduu yahay oo aad rabin video ilaa dhammaadka inaad sii daawato, fadlan intaadan ka bixin ka hor like-ta sii saar si videogan u gaaro dadka u baahna. waana mahadsantihiin. Okay, ka hor intaana videogan maanta gudagelin waxaa jeclaan lahaa marka hore inaad nagu taageertaan subscribe, like iyo share. intaba waa free. dhinaceen laakiin waxay ka tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarino videoyaal aad iyo aad u tayo fiican, dad badan aan u caawino oo u baahan markaas inay bartaan teknolojiyada. Okay, waana mahadsantihiin. si aan u sameyno Facebook account waxaa isticmaali karnaa computerkeena ama waxaa isticmaali karnaa mobileka. Okay, maanta waxaa isticmaalina oo kaliya computerkeena ayadoo la isticmaalaya mobilkana mar kale ayaa soo qaadan doona insha Allah. si aan u sameysano account cusub ama Facebook account cusub waxaa u baahannahay laba shay oo aasaas ah. marka laga soo tago inaa computer iyo internet iyo koronto waxaasoo dhan inaan haysano. marka laga soo tago waxaa u baahannahay laba shay. kow waa inaan haysana emailkaaga ha ahaado Gmail, Hotmail, Yahoo, wuxuu raba ahaado waa inaa email haystaa. kow. labo waa inaa sawir haystaa, sawir lagaa soo aqoonsan karo dadka kale oo maaragtay aad saaran karto profilekaaga. sida sawirka profile loo saarta ayadana waa kusoo laaban doonaa qaybta dambe video insha Allah. Okay, tilaabada ugu horeysa qaadayna waxay tahay qaybtan sare ee URL-ka ayaa waxaa ku qoraynaa facebook.com. Okay, markaa ku qorno waxaa imaanaynaa pagekan qaybtiisa bidix waxaa ka aragnaa form ayaa ku yaala email or number telefoonkaaga iyo emailkaaga midkood meeshaas geli, password, login, forget. waxaanu dhan ma u baahnin maadaama aan sameynin account cusub. waxaa u baahannahay oo kaliya create new account. ka hor intaan create new account aan taaban badhankaas qaybta ka hoose waxaa u jeednaa create a page. haddii aad rabto Facebook page ama business page si loo sameeyo mar kale ayaa soo qaadan doonaa. waxaan rajaynaa inaa maaragtay kanaalka aan kusii taxanaataan si aad uga faa'iidaystaan videoyaasha dambe ee soo socda insha Allah. Okay, qaybta hoosena waxaa ka aragnaa luqadda language, English, Norsk, Ninosk, Polsk, Spanish iyo luqado fara badan. haddii aad luqaddaa rabtay meeshaan ka weyso, tusaale ahaan Soomaali oo kale meeshaan ma ku jiro hadda, plus ayaa taabanaya kadib luqaddaa rab meeshaan ay ka raadinaya. waa luqado badan. Soomaalina u jeednaa waa qaybta u sareysa. Okay, wadamada ama qaaradaha rabta meeshaas ayaa ka dooran kartaa luqadooda, markaas way kuusoo fududaanaysa oo waa helaysa markaas. Okay, ma u baahin hadda inaa wax ka bedelo, close naga dheh. haddii aad rabto inaad luqad kala doorato carabi camal, tusaale ahaan language Arabic, alcarabiya haddaa rabto saas u dooran kartaa. ma u baahnin Isbaanyool, ma u baahin waxaas oo dhan. English inoogu soo celi. Okay, markaad soo doorato luqaddaa rabtay kadib waxaa imaanaysaa create new account. hadda English ayaa ku sameyn doona videogan la soo insha Allah. create new account kadib waxaa gelinaynaa magaceena, last name, magac waalidka, mobile, email. waxay muhiim u tahay tookada dambe aad soo geli doontid ayaa la weydiinayaa emailkaaga ama numberkaaga iyo passwordkaaga. Okay, magaciga ayaa gelinaya. waxaa dhan aa gelinaysa waa inay ahaadaan kuwo sax u dhow. dad badan oo Facebook yaal bug ama qalad iska samaysta way buuxaan, laakiin haddii aad rabto mid Facebook maaragtay account oo caalami ah waa inaa accountigaada wax sax gelisaa. Ali Mohamed Usman, email geli ayaa leeyahay Ali Bashi Usman @gmail.com. ku celi passwordka Ali Bashi Usman @gmail.com. Okay, kadib waxaa gelinaynaa passwordka ma u baahnin inuu noo sameeyo. waxaa u baahnaa in aan ka samaysano waa inuu ka koobnaadaa ugu yaraan 6 xaraf oo maaragtay nambaro, tirooyin iyo xarfo waaweyn iyo nambarada maaragtay specialka sida calaamad su'aalka, calaamatul cajabka, waxyaabahaas oo kale waa inaan ku darsataa si uu noqdaa password adag oo aan lagaaga jabsan. Okay, anu hadda waxaa isku daray tirooyin, xarfo iyo maaragtay xarfo waaweyn iyo yaryarba. kadib waxaa gelinaysaa dhalashadaada. waxaasoo dhan markaa buuxiso qaybtan hoose female, male, rag iyo haween midkaa rabto markaa kala doorato. custom u baahnin, waa waxyaaba ay kusoo dareen sanadihii u dambeeyey. labadaas midkood markaad doorato kadib waxaad taabanaysaa sign up.
marka sign up taabano waxaana la soo gudbinaya pagekan waxaana leeyahay enter the code from your email emailka aa gelinay ayaa waxaa noogu soo diray password emailkana waa kaas meesha inooga muuqda haddii uusan password kuu soo dhicin mar kale ayaa dhihi kartaa send email again mar kale iisoo dira haddii emailkaas aadan haysan passwordkiisa oo aadan geli karin meeshaas ayaa taabanaysaa update contact information email cusub ayaa siinaysaa password cusub ayaa lagu soo diraya markaas okay hadda waxaa tegnaa emailkeena password ayaa noogu soo diray emailka markaa tagno ujeedaa passwordka waa ka aadaa loo soo yareereyey okay copy ilaa xariiqinta xitaa way noo taalaa paste control v control c control v ayaa taabanaa okay kadib waxaa taabanaynaa continue alright shantaas number markaa gelisa ka bacdi continue ayaa taabanaynaa waxaa noola sii gudbinayaa qaybta kale ee Facebook account okay waxaa lagu leeyahay account confirm waa la hubiyey in emailkaas aa adiga leedahay okay emailkaas ayaa ka bacdi login ku sameyn doonta ayaa lagu leeyahay okay marka ugu horeysa aa Facebook account aa samaysto waxaa kuu soo muuqanaya pagekan hadda sanadka 2021 waxaa laga yaabaa sanadaha dambe ee soo socda haddaad samaysto inuu sidaan wax yar ka duwan yahay laakiin inta badan maaragtay wax aad isbedel aad weyn ma dhici doono tallaabada ugu horeysa aan sameynayn markaa soo galno accountigeena waa inaan qaybtan sare tagnaa magacaada ayaa taabanaysaa ali waa magacayga u fiirso accountiga sidaan ayuu ogyahay wax post maan qoran weli wax saaxiibo ma haysano sawirro ma noo saarno kadib waxaa taabanaynaa calaamadaas kaameradoo kale markaa taabato waxaa kasii dooranaynaa upload a photo okay photo ayaa dooranaynaa frame waa gelin kartaa laakiin u baahin hadda upload a photo alright marka photo aad soo dooranaysid hadda aniga footooyinka ama sawirada waxay ugu jiraan download ayaa hadda geliyey kadib waxaa taabanaya open meeshaa ka raadinaysid ista u raadinaysid haddii aad aqoon fadlan nala soo wadaag video ayaa ka sameyn doona ayadana okay marka account aad samaysanaysid waxaa muhiim in indhahaada afkaaga dhagahaada qayb ka mida wejigaa si fiican loo arki karo si lagu aqoonsado in adiga tahay ama accountigan qof iska leh in adiga tahay qaybtan zoom in ayaa dhigi kartaa hoosii kor u jeedi karaa meesha rabaa geenaya waa inaad centerka aad joogo markaas ka fogey wax yar okay make crop haddaa rabo waa jari karaa sawirka qaybo ka mida waa soo gaabin karaa laakiin u baahan inaad crop ka dhigo make temporary si ku meel gaar ayaa sawirkan ugu maaragtay meesha ugu dhigan karaa okay ma u baahan inaad ku meel gaar ka dhigo waa profile picturekeyga saas ha ii ahaado alright qaybtan sare sawirka descriptionkiisa ay qori kartaa waa qeexi kartaa waxaa dhigi kartaa kani waa aniga ali maxamed cusman okay kadib waxaa taabanaynaa save markaa taabano calaamadahaas oo ujeedaa waa socdaa waxaa lagu kaydinayaa maaragtay pageka okay profileka ayaa la saaray sawirkii alright qaybtan sare sawirka gadaashiisa waa cover Facebook cover ayaa lahaa sida maaragtay magacyada iyo waxaa rabta ugu soo qoran karto video kale ayaa ka sameyn doona ayadana add cover ayaa ku daraynaa select a photo haddii aad rabto upload computerka haddaa ku haysto upload ayaa taabanaysaa upload computerkeen haddii aad ku haysano mid tusaale ahaan calanka ayaa saaranaynaa ama waxaa rabta ayaa gashan kartaa okay haddii aad rabto waxaa ka dhigan kartaa sawirro kale oo aad jeceshahay sawirrada computerka ugu jira midkaa rabta ay ka dhigan kartaa okay haddii aad wax badda ku saabsan ama badda aad danayso ama sawirrada midkaa jecesha ayaa saaran kartaa kor iyo hoos oo qaban kartaa laakiin midig iyo bidix ma wadi kartid alright sawirka markaa heerka aad ku qanacsana markaa gaaray kadib waxaa taabanaya save changes qaybtaas sare dhinaca midig cancel waa dhihi karaa laakiin hadda save inuu dheh sidaas ha inoo ahaado okay hadda markaan waxaa sameysanay sawir ayaa saaranay coverkina waa bedelnay waxaa tegaynaa tilaabada ugu horeysa oo saddexaad waa inaad tagna settingka oo aan wax ka bedelnaa okay setting markaa tagno waxaa ujeedaa meeshaas emailkeyga waa kaas ali baashi cusmaan usernameka ali maxamed cusmaan haddii aan rabo magaceyga waxbaa ka bedeli karaa haddii aan rabo inaan ku laabto waxbaa ka bedeli karaa haddaan u baahne okay kadib privacy ayaa tagayaa privacy markaa tagno qaybahan who can see your future post yaa arki karo qoraaladaas soo dhigto edit friends waa ka dhigi kartaa ama public dadkao dhan oo Facebook isticmaal waa u furi kartaa okay manage your profilekaaga haddii aad rabto inaad maareyso qaybta ay tagaysaa
meesha ka shaqeyso waxbarashada waxaas oo dhan meeshaas ayaa ku qorqori kartaa. Okay, hadda hoos ma usii dhaadhici doono kadib waxaa tegaynaa friends saaxiibada haddii aad rabto in asxaabtaada raadiso oo ku darsato markaas waxaad tegaysaa find friends. Okay, find friends inta ay qorisaa magacooda ama emailkooda tusaale ahaan Ali Usman facebookgayga kale hadda aan raadiyo u fiirso hadda ma soo muuqdo laakiin qof kale tusaale ahaan waxaa taabanaya plus add friend saasna waa ugu darsan kartaa saaxiib cusub ama asxaabtaadii hore ee maaragtay kaa dhumay ama asxaab cusub haddaa raadinaysa haddii aad rabto waxaa ku qori kartaa emailkooda sidaasna waa ku heli kartaa. Okay, photos sawiradaada meesha ay soo galayaan storyga meesha iyadan soo galaan waxaad inoogu jir ma lahan video halkale ayaa kasoo samayn doonaa. More markaad taabato waxyaabaha jeceshahay meeshaas ayaa ka dooran kartaa. Videos waxyaabaha soo gelisay oo markaas ku saabsanaa videos music books waxyaabaha jecleed oo dhan waxyaabaha xiisaysid gruubyada aad ku jirtid like-yada aad siisay waxaasoo dhan meeshan ayay soo galayaan. Okay, qaybta xigta waa view as markaad taabato waxaa arkaysaa dadka kale siday u arkaan Facebook accountigaada marka sawirada soo dhigtay postyadaada sidee dad kale uga muuqdaan ayaa laga fiiriyaa view as. haddii aad rabto inaad ka baxdo waxaad taabanaysaa exit view as. Okay, qaybta xigta waa search waxaa laga raadiyaa qoraaladii hore soo dhigtay sawirada soo dhigtay taagyada aad soo dhigtay ama lagu soo taageerey wax kastoo ku saabsana meeshaas ayaa laga raadiyaa. Okay, qaybta saddexaad ama ugu dambeysa waa saddexdaas dhibac oo dul saaran markaa furto waxaa fiirin kartaa accountigaada statuskii siduu yahay xaalkaaga ama accountiga siduu yahay waxyaabaha kaydisay activity dhaqdhaqaaqi ugu dambeeya aad samaysay iyo profilekaaga settingkiisa meeshaas waa ka sixi kartaa sida hore usoo aragnay settingkan oo kale waa asigana waa ka sixi kartaa. Okay, haddii aad rabto inaad ka baxdo log out ayay taaban kartaa log out. Okay, waxaa isku dayanaa markaan log out inaad dhahno oo haddana dib ugu soo laabno log out. Okay, markaa ka baxdo sidaas ayuu u muuqan doonaa accountigaada meeshaas ayaa lagu keediyay. haddii aad rabto inaad ku laabato click ayaa siinaysaa kadib passwordka ayaa meeshaas gelinaysaa. Okay, kadib login haddii aad rabto remind password waa ka dhigan kartaa u baahni hadda login ayaa taabanaya sababtoo passwordkii kor ayaa ka aqaanaa. Okay, take a privacy tour haddii aad rabto waxay ku leeyihiin maaragta securityga ku sii saxna ama ku dhammaystirno sii taabo ma u baahnin informationada ugu dambeeya nala soo dir meeshaas ayaa imaadaa notification markaa furto u fiirso welcome to Facebook. Okay, asxaabtaada kugu darsatay ama ku darsatay markay wax soo geliyaan ayakana meeshaas ayaa lagu soo qoraya. Alright, markale haddii aad ku laabto maaragtay accountigayga saas ayuu u muuqdaa. Okay, haddii aad rabo inaad tago Facebook page ama Facebook group inaad raadiyo meeshaas ayaa ku qoraya tusaale ahaan Soomaalida markaa ku taabto okay ayaa taabanaya wax kastoo Soomaalida ku saabsan meeshaas ay imaanayaan. Okay, groupka aan leenahay sida tusaale ahaan kobci xirfadda haddii aad raadiyo gruubyada dhan oo ku saabsan kobci xirfadda intaa la keenaya kobci xirfadda waa kana groupkeena. haddii aad rabto inaad kusoo biirto waxaad samayn kartaa oo keliya join group. Okay, su-aal ayaa lagu weydiinayaa ama u fiirso su-aal ayaa lagu weydiinayaa waa ka jawaabaysaa submit markaa su-aalaha ka jawaabto groupka waa kusoo biiri kartaa markaas kabacdi activation gadaal ayaa laga soo aqbalayaa. u fiirso accountigii kale waa kana Ali Usman Ali Bashi haddii aad rabo waa ku darsan karaa friend ahaan add as friend waa u dirsaday waa in maaragtay waxaa sugaya in asiga uu iga aqbalo. haddii aad rabo codsigaa dalbaday waa ka tiri karaa cancel request. Okay, waxaa ka arkaa cali asxaabadiisa waa aniga accountigii kale. Okay, kan hadda sameynayno waa tijaabo oo adiga ayaan kugu talagalay inaan ku tijaabino. haddii aad rabto inaad home kusoo laabato dadka Facebook asxaabtaada iyo dadka pageyaasha ku xiran tahay wax ugu dambeeya soo dhigeen home ayaa taabanaysaa meeshaas ay kasoo muuqanayaan. Okay, videogeena maanta aan kusoo qaadanay sida loo samaysto Facebook account intaas ayaa kusoo koobana insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad fahamteen oo aad ka faa'iidaysteen. haddii aad leedahay videodan oo lagu baranayo teknolojiyada waa muhiim fadlan nagu taageer inaan faafino asxaabta gaarsii like subscribe share waxaynu tahay dhiirigelin si aan usoo diyaarin video kale oo aad iyo aad u tayo fiican insha Allah. Okay, videoyaasha xiga waxaan kusoo qaadan doonaa sida Facebook post si loo soo geliyo noocyada kala duwan sida chattingka sida maaragtay asxaabta loo raadiyo iyo videoyaasha si loo soo geliyo waxyaabahaas oo dhan oo Facebook ku saabsan insha Allah. waana mahadsantihiin waxaana inoo balan insha Allah video xiga.